الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين القائل صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث على قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. الحمد لله على نعمة الإسلام ilaahay islaamnimada nagu galladaystay baa mahadda iska leh. majliskan waa majaalis aliimaan siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. iimaankuna uu ziyaadaa u nuqsaamaa, daacaddana uu ku ziyaadaa, macaasida iyo qaflada iyo maalayacniga iimaanku waa ku nuqsaamaa. xandalo radia allaahu canhu kaatib alwaxyi ayaa la kulmay abubakar, markaasuu abubakar ku yidhi kayfa asbaxta yaa xandala, markaasuu yidhi xandala naafaqa xandala, yacni waxaan ka cabsanayaa buuhi nifaaq baan ka cabsanayaa. axad kutaab alwaxyi weeyaan. markii nebiga calayhi salaatu wassalaam jibriil uu waxyiga u keeno nazala bihi aruuxu alamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin. markii jibriil calayhi salaam uu nebiga qur-aanka iyo waxyiga u keeno, raggii nebi maxamed hor fadhiyey ee qori jiray waxyiga nin ka mida buu ahaa maaragtani xandala. waxauna ka cabsanayaa waa nifaaq. markaasuu abubakar ku yidhi war maxaad leedahay? wuxuu yidhi yaa abaabakar, markii majliska nebigaan fadhinay calayhi salaatu wassalaam ee nebigu jannada iyo naarta uu nagala mudaakaroonaayo, waxaabad moodaa jannada iyo naarta inaan u jeedno. mar aliya markii adduunyadii iyo baylahdii iyo dayacaadkii iyo danihii aan ku noqonnona wixii markii aan xasuusnayn inta badan waan halmaamnaa buu yidhi. abubakar baa yidhi innaa lanalqaa maa talqaa, hadal macnihiisu yahay arrintaa adigana aada la kulanto annakuna waan la kulannaa. ee bal nebiga inoogii hanu sheegnay calayhi salaatu wassalaam. markay rasuulka u yimaadeen ee u sheegeen xawaashoodii ayuu rasuulku yidhi aniga markaad ila joogtiin iimaankiinnu halka uu taagan yahay, haddii mar walba iimaankiinnu halkaa taagnaan lahaa jidadka iyo firaashada korkooga ayay malaa'igtu nagu gacan qaadi lahayde, walaakin saacatan wa saaca buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam. saacadna waa cibaado weeyaan, oo qofku markuu ilaahay caabudayana iimaanka u ziyaadaya. idaa ra'aytum arajula yactaadu almasaajida fashhaduu lahu biliimaan buu rasuulku yidhi. haddii aad aragtaan nin masaajidka mar walba xaggiisa u soo socdo, waa 5 waqti bay culimmadu ku fasireene, qofkaa iimaan u markhaati kaca buu rasuulku yidhi. salaaddu iimaankay ziyaadinaysaa, majliskan iimaanka ayuu ziyaadinayaa. innahu yuxibu majaalis aliimaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam. ninkii acraabigii ee kaga soo dacwooday rasuulka cabdulaahi bni rawaaxa ee yidhi nebi allow ninka cabdulaahi bni rawaaxa la yidhaha iimaankiibuu saacad keliya ku koobay. markaasuu nebigu ku yidhi allah ha u naxariisto ibnu rawaaxa, wax kale ma jeclee majaalista iimaanka ayuu jecel yahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam. marka iimaanku wuu ziyaadayaa, taacaddu iimaanku ku ziyaadayaa, hafladda iyo malaayacnigana iimaanku waa ku nuqsaamayaa. lidaalika nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam
waxau ka ashkatooda maaragtaan qaswata alqalbi qalbigiiba engegay buu yihi maxaan sameeyaa waxau rasuulku ku yidhi imsax ra'sa alyatiimi waacimi almiskiin agoommahana madaxa u salaax buu ka yidhi masaakiintana quudi buu nebigu yihi qalbigu markaabuu kuu jilcayaaye innagana allah ina fahamsiiyo hadda maanta muslimiinta ayaan darrada ku dhacday waxaa ka mid a ziyaadata goormuu iimaanku ziyaadayaana garan mayno goormuu iimaanku nuqsaamayna garan mayno meesheebuu iimaanku ku ziyaadayaana la garan maayo meesheebaa iimaanka dhaawacaysana la garan maayo bal qofkii maanta adduunyada u ziyaadana uu farxayaa kay adduunyada ay ka nuqsaantana uu ka murugoonayaa marka majliskan iimaankeenaa ku ziyaadaya ilaahayna adduunyadan wuxuuba inoo keenay ujeeddada adduunyada ilaahay inoo keenay waxa weeyaan inaan ku dadaalna sidaan u gaari lahayn macrifada ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiiqadeeda wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaa liyacrifuunii ilaahay wuxuu leeyahay jin iyo insi umaan abuuran ilaa haddaan u abuurtay waxaan ugu talagalay keliya inay aniga i bartaan ee i gartaan baa ilaahay yidhi bini aadanka quwad baa ilaahay siiyey caqli iyo karti iyo cimri iyo fahmad iyo dhaqaale waxaa nicmaddaa lagu siiyey ujeeddo kale maahine nicmaddaa ilaahay ku siiyey inaad u adeegsataan loogu talagalay inaad ku gaadho ilaahay macrifadiisa dadka adduunyada ku nool dhammaan way dadaalayaan maanta qof meel fadhiya ma jiro qof walba wuu dadaalayaa dadaal baa ka soo fulaya jirhkiisa dadaalka inaga soo fulaaya ama wuxuu noqonayaa dadaal ilaahay noo dhoweynaya ama waxau noqonayaa dadaal xagga makhluuqa inoo dhoweynaya meel saddexaadoo loo socda ma jirta caalamka yowmiyan waagii berye iyo gabalkii dhacaba qofku ama ilaahay buu u dhowaan oo diin iyo taacad iyo cibaadu ku dadaali oo cibaadadiiyo taacaddu qofka ilaahay bay u dhoweynaysaa ama qofku wuxuu ku dadaalayaa ashyaa iyo makhluuq iyo maaragtaane addunyo beena xagga makhluuq iyo ashyaadu u dhowaanaya qofkaas fursad ilaahay fursaddan muxuu inoo siiyey nolosha adduunyada dadku waxay moodayaan in loo abuuro inay cunaan ay cabbaan afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun ilaahay wuxuu odhanayaa maalinka qiyaamaha ma waxaad u malayseen ama aynila noqotay inaan ciyaar inii abuurnay ood xaggayga usoo noqonayn adduunyadan bini aadanka ciyaar looma keenine bal bini aadanka waxaa adduunyada loo keenay inay ilaahay tabaaraka wa tacaala macrifadiisa xaqiiqadeeda ay gaadhaan baa loogu talagalay bini aadanku xawaa'ij badan buu leeyahay baahiyo fara badan buu bini aadanku u qabaa baahidii bini aadanku u qabayna ilaahay baa le taa aniga igu daaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii addoonkii markuu yidhahdo ilaahu adigoon baanu ku caabudaynaa gargaar iyo kaalmana adigoon baanu kaa sugaynaa ilaahayna waxau leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii taasi aniga addoonka naga dhaxaysa minka alcibaadatu wa minii alcawn adigana cibaadadii ha kaa sugnaato annakana kaalmayntiiyo gargaarkiina nagu daa buu ilaahay ku leeyahay adigu annakana raalli geli baa ilaahay kuyda adigana annagaa ku raalli gelinaynay araada lanaa shay waxbaa ilaahay naga doonay innaka muxuu ilaahay naga doonayaa ilaahay waxau naga doonayaa inaan awaamirtiisa fulino inaan isaga cilaaqo dhaba la yeelanno inaan isaga keliya tala saaranno inaan isaga keliya ka cabsoonno inaan isaga keliya rajayno inaan isaga keliya rumayno inaan isaga keliya barino taasaa ilaahay naga doonayaa innaka inaan ka fikirna mar walba saacad walba daqiiqad walba maalin walba sanad walba bil walba maadaa yuriidu allahu mina ilaahay muxuu naga doonayaa taas markii addoonka ay ka soo fushay isaga ilaahay waxau leeyahay annakana kaalmayntiiyo gargaarka nagu daa haddeetoo le minka alcibaada wa min iyaaka nacbudu baa horraysa shardiga addoonka laga doonayaa horreeya mawcuudkana u dambeeyaa markaas bal qur-aanka u fiirso in tansuru llaha yansurkum baa layidhi haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay waa nii gargaarayaa adcuunii astajib lakum baa ilaahay yidhi ibarya anna ducada marka waa niga ajiibayaa ibarya waa niga ajiibaya ii gargaara waa nii gargaarayaa minka alcibaadatu wa minii alcawn adigana cibaadadii iyo taacaddii ha kaa sugnaato kaalmiya gargaarkiina annaka nagu daabaa ilaahay ku leeyahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum fi lardi baa ilaahay yidhi kuwa iimaankii camalka saalixa laga hela waxa ilaahay u yaboohay inuu maamulka adduunka iyaka u dhiibaayo iimaan iyo camal saalixna waa matluub khilaafa islaamiyana waa mawcuuda weeyaan mawcuudkiibaa maanta ummaddu ay ku hanqaltaagaysaa matluubkiina waa laga tegay mawcuud
lidaalika ilaahay addoonka waxbuu ka doonay. muxuu ilaahay naga doonayaa? ilaahaynaga wuxuu naga doonayaa inaan isaga keliya rumayno bas. yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. mucaad binu jabalow ma ka warqartaa, ma og tahay xaqa ilaahay addoonka uu ku leeyahay iyo xaqa addoommuhu eebba ay ku leeyihiin? mucaad radia allahu canhu wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam, arrintaa ilaahayba iyo rasuulka iga oqon la buudhi aniga. markaasuu nebigu ku yidhi yaa mucaad, xaqa ilaahay addoommaha ku leeyahay waxa weeyaan inay dadku ilaahay keligii caabudaan, oo keligii ay tala saartaan, oo keligii ay rumeeyaan, oo keligii ay baryaan, oo keligii ay rajeeyaan, oo keligii ay isku halleeyaan. yaa ilaahay cidda isaga barida ee tala saaratay caabudana ilaahay tabaaraka wa tacaala in waxay xaq addoomuhu ilaahay ku yeesheen, ciddii ilaahay caabuday cibaadada u barax tirtana inuu ilaahaysan cadaabin. addoonkii baa xaq lagu leeyahay, xaquna ilaahay buu addoon ku yeelanaya. bal diintan islaamka cadaaladeeda u fiirsada. ilaahay waxau naga doonaya innaka marka horraysa waa maxay? inaan maaragtaane amarkiisa aan qaadanno. sidii uu naga doonaya waa inuu naga helaa. adduunyadana meel baahida bini aadamka lagu dhammaystiray ma aha. adduunyadan waa caalam ujeeddo keliya bini aadamka loo keenay. ujeeddadu waa maxay? dadku inay adduunyada kala tagaan iimaani camal saalix. halkan raaxa adduunyada ma taallo. adduunyada raaxa hadday taallana dadkii ilaahay jeclaa buu raaxada siin lahaa. low kaana liibni aadama waadiyan min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan walan yamlaa faahu ila turaab wayatuuba allahu calaa man taaba, nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyada raaxa ma taallo. meel baahida bini aadamku ay ku dhammaystirmaysana ilaahay adduunyada kama dhiginba. kulligeen nin walba baahi nambaraa ka qaldan. ninay nambarra u saxsayin caalamka ma jiro. gaal iyo islaam, caddaan iyo madow, ka adduunyada ugu dhaqaalo badan ilaa ka adduunyada ugu hooseeya, dhammaan way baahan yihiin. baahidooduna adduunyada kuma dhammaystirmayso. nebigaa sheegoo yidhi inaadan haddii la siiyo tog dahaboo socdo qulqulaya kun labaad buu jeclaan buu rasuulku yidhi. meel baahida bini aadamku ay ku joogsatay adduunyada lagama dhigin, bal adduunyada waxaa loogu talagalay meeshii laga sahay qaadanaya. sahayda la qaadan waa maxay? watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa. sahayda la qaadanaya waa la kayaab weeyaan. alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi raxiil buu imaam cali ku fasiray taqwada. ilaaha jaliilkaoo laga cabsado, qur-aanka oo lagu dhaqmo, qanaaco oo la yeesho qofku arsaaqada intii eebba ugu talagalay uu ku qanco. maalinka dadku ay u guuri doonaan loo intiqaalayana waa inuu addoonka mu'minka u diyaar garoobo weeyaan. adduunkan waa meel laga sahay qaadanayo weeyaan. sahayda la qaadan waa maxay? sahayda la qaadan waa iimaan iyo alla kayaab weeyaan, wax kale maaha. iimaan baa la qaadanaya iyo alla kayaab. marka insaankan waxaa adduunyada loo keenay bini aadamka laga doonay waa inuu fahmo waxa ilaahay uu ku siiyey ee nicmadoo dhan wuxuu ugu talagalay inaad u adeegsato inaad ku gaadho macrifada ilaahay. taasaa adduunyada lagu keenay. laakiin nasiib darro, ayaan darro, dadku maanta dariiqii loogu talagalay intay ka weecdaan. kulligeen waxaan badanaa dadku maanta waxay ku dadaalayaan ilaa man raxima rabbi, siday makhluuqa u garan lahaayeen iyo siday makhluuqa uga faa'iidaysan lahaayeen. nebiyaduna calayhim asalaam waxay la yimaadeen siday bini aadamku khaaliqa u garan lahaayeen, khasaa'inta khaaliqana ay uga faa'iidaysan lahaayeen. taasay nebiyadu la yimaadeen. nebi ilaahay ma soo saarin oo qur-aanku ma sheegin dadka maaragtaane u sheegay ama u tilmaamay sida arrada looga faa'iidaystee, bal nebi walba wuxuu la yimiday siday dadku ay ilaahay ugu xidhmi lahaayeen, deedna iimaankii camalka saalixa ay khasaa'inta ilahi ugaga faa'iidaysan lahaayeen. taasay nebiyadu la yimaadeen. qawmu nuux way tiro badnaayeen. qawmu caad way quwad badnaayeen. qawmu hamuud khibrad bay lahaayeen, sanaacadday khibro u lahaayeen. qawmu shucayb tijaaraday khibro u lahaayeen. qawmu saba ziraacadday khibro u lahaayeen. qawmu ibraahim boqortooyaday khibro u lahaayeen. qawmu ciisa tibigay khibro u lahaayeen. qawmu muxamed luqada iyo balaaqaday khibro u lahaayeen. carabtuna dadka caalamka soo maray ummad walba waxbay ku faanaysa oo xirfo u ahay. ummad walba waxbay tala saaranaysay. ummad walba agtooda waxbaa qiimo ku lahaa. laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen waa shay keliya weeyaan. wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila an uuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. nebiyadu waxay la yimaadeen dadka inay ku xidhaan ilaaha khaaliqa bas, ilaaha macbuudka. dadku ilaahay inay gartaan, cibaadadana ilaahay u badhaxtiraan, baryada ilaahay u badhaxtiraan, ilaahay keliya cilaaqo la yeeshaan, maa siwa allah oo dhanna ay cilaaqada ka goostaan.
taasay nebiyadu adduunyada la yimaadeen. bal sheega qur-aanka ka sheega nebi ummadda wax kale ugu yeedha qur-aanku ma sheegin. afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah buu rasuulku yidhi. nebiyadu maxay la yimaadeen? nebi kaste caalamka markuu yimiday waxay ummadiisu haysato wax ka horumarsan ulama iman, bal waxa ula yimiday shaygan dadku ay haystaan. wuxuu nebi walba ummaddiisa u sheegay inuu yahay shay yaroo manfaco gaaban. tijaaradda manfacadeedu way gaaban tahay, ziraacadda manfacadeedu way gaaban tahay, sanaacadda manfacadeedu way gaaban tahay, quwadda manfacadeedu way gaaban tahay. waa ifka inta la joogan baa laga intifaaci, dhidna waa laga dhiman. laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen shayga bini aadamka ifkana anfacaya, qabriga ku anfacaya, qiyaamaha anfacaya, jidka siraad anfacaya, jannada gelitaankayga ay ku mutaysanayaan. iimaani camal saalixa weeyaan shaygaas. fa ilaahay jalla wacalaa bini aadamkan waxa uu ka dhigay qalbiga caalamka. bini aadamku waa qalbiga adduunyada weeyaan. hadduu islaaxa bini aadamku koonkao dhan baa islaaxi. hadduu bini aadamku xumaadana koonkao dhan baa xumaan. dadka qalbiga ka bukooda dawo male baa la yidhi. haddii koonku baa la yidhi qalbigiisu waa basharke, hadday basharku islaaxaan caalamkao dhan baa islaaxi. hadday basharku xumaadaan adduunkao dhan baa xumaan. bini aadamkuna halkuu ka islaaxaa? halka bini aadamku ay ka islaaxaan dhagaha iyo aragga iyo gacmaha midna maaha. halka bini aadamku ama ay ka xumaadaan ama ka islaaxaanna waa qalbiga. alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbi buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam. bini aadamku halkuu ka islaaxa waa qalbiga weeyaan, halka uu ka xumaadana waa qalbiga weeyaan. qalbigu muxuu ku islaaxayaa? qalbigu wuxuu ku islaaxayaa shaygii loogu talagalay qalbiga markuu fadhiisto qalbigu islaaxayaa. shaygii loogu talagalay qalbiga markii laga waayona qalbigu waa xumaanaya. markaas qalbiga maxaa loogu talagalay? qalbiga waxaa keliya loogu talagalay inay fadhiisato ilaahay macrifadiisu. iimaanka meeshiisu waa qalbiga weeyaan. walamaa yadkhulu aliimaanu fii quluubikum baa ilaahay yidhi. iimaanka halka uu iimaanku fadhiisto waa qalbiga weeyaan. nebiyada waxaa loo soo dirayna inay kelimadda tawxiidka qaadaan oo meeshii loogu talagalay ay gaadhsiiyaan ayaa nebiyada loo soo saaray calayhim assalaam. taasay ku dagaaleen nebiyadu. hadduu qofku ilaahay jalla wacalaa uu garto, uu khaaliqa garto, uu ilaahay cilaaqaad la yeesho, uu ilaaha aamirka uu garto, amarkiisaa markaa u fududaanaya. xuquuqdii ilaahay buu markaa garanayaa, xuquuqdii addoommaha ayuu garanayaa. diintuna waaba laba weeyaan, waa xaq addoonkii ilaahay u dhexeeya iyo xaq u dhexeeya addoonkii addoommaha ilaahay, labada weeyaan. nebiyaduna calayhim assalaam bini aadamka halkay kaga dadaaleen waa qalbiga weeyaan. qalbiguna wax kale kuma islaaxee, qalbigu waxau ku islaaxayaa waa laa ilaaha ila allah hadday fadhiisato. wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha. ibnu cabbaas wuxuu yidhi waa kalimata tawxiid. ilaahay jalla wacalaa qur-aanka waxau ku sheegay asxaabu muxamed quluubtoodii inuu dhex fadhiisiiyey kalimatu taqwa. ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray waa kalimatu tawxiid, laa ilaha illa allah weeyaan. asxaabta nebiga halkaa markay kelmaddaasi qalbiga ay u gashay xaqii ilaahay bay garteen, xaqii nebigay garteen, xaqii waalidiinkay garteen, xaqii ubadkay garteen, xaqii dumarkay garteen, xuquuqdii jaarkay garteen, xaqii qaraabaday garteen, xaqii muslimkay garteen, xaqii bahaayimkay garteen, xuquuqda ay gaaladu leeyihiin bay garteen. waxay noqdeen khalqi caalamkao dhan anfacay noqdeen. khalqi caalamkao dhan anfaca. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayaa zamankii nebiga xaqiiqo ku noqotay caalamka. marka bini aadamkuna baa la yidhi waxa uu ku dadaala natiijadiisa uu helaya. hadday dadku ku dadaalaan adduunyada manfacadeeda way helayaan. hadday diinta iyo iimaanka ku dadaalaanna manaaficu diin waliimaanna way helayaan dadku. haddii adduunye lagu dadaalo adduunyada waa la heli. waxaan biroo dhan adduunyadan waa dhooban weeyaan. waxaan maanta caalamka o dhan guuxaya, birtaa iftiimaysa, birtaa hawada keenaysa, birta qeelada dheeraynaysa, birta caalamka kula hadashiinaysa, birtan caalamka loo raacayo, birtan caalamka hadalkaaga u tuuraysa, waxaasoo dhan waa natiijatu tiin weeyaan. dhoobadaa laga soo saaray, waa macdantii arlada. laakiin arlada khayraadkaa goormuu ka soo baxay?
ومركي بني آدم كو أي أرلد أفكرين ويان فكركي مركي لو فورورية أرلد السين وقفايدي سنة منافع دي أرلد مركا صوبح دي منافع دي أرلد مركي صوبح دي محاد عي بني آدم كي قيمي سيهوس بود عي لكن بريه يقريه ما بني آدم كي كقيمة بطيمك بطيم سماه سماه هنده معوستك يقف كمان تمتيا قالسا مقالة مقدسة بل كجواب يا ميقا يقول صلاة الصبح وصعود معوس لقى صارتوا للدلي بني آدم كي قيمي سيروس ودعي عالم كمان محا هرو مري وعدتك بانت وحي إليه زمن كان زمن العصر وهرو مر وتقدم زمن كان تقدم معها وتأخر ويام تقدم حال إرادة وزمن كي النبي عليه الصلاة والسلام زمن كي النبي بني آدم كهرو مري زمن كان ما تدبره حديث كما هرو مري ورمان قلدنا من سوان توصنا يا بالكف كرا أوي عدالتي أوي كلا دنبينتي أوي محبتي أوي احترامكي أوي اسكورهينتي أوي اسكون حريص الشدي أوي صفاتك إنسانية الله قلت لك العالم كوي كزو شيء صفات الحيوانية ما أنت أدوية كدا عيسى نوال بوح وكفكر يا سيدنا نقول والله لا صفات الحيوانية ومعي حيوانك واحد ويان حيوانك وأفر مرتبة إليه أفر درجة يمسد درجة أفر حيوانك اللي هذا البهايم كاللي هذا المواشي والبهايم عندنا مدبان مصلحات دودن وكفكران عندنا والشمبرها قيلة لوضع أرقة دميرها فردها وما إلى ذلك مصلحات دودي يقانين عندنا مدباتيان لوضي وبيرادين يسوى أروريسا ساعة قدام بيهدو بيهلو انتو اسكا عبو اسكا دحمر ياكو هرنو شيء مايو حيوانك الطبقة واتهاويان طبقة اللباد وحويان والسباع دقاق اللي ده دقاق اللباحة ايو درواق ايو شبالك ايو ييق ايو دعوض ايو الهي ديق داضيان مدرقان بشر كما انت النوع باصدا سمانت عالمك ديق ولالكي ودادين ايو ماركتان يسوي كفايدي سنية إلهي ديق دادي حاجة دي سمق قد ميسو طبقات كل وحويان الحيات والعقارب حيوان كالليلة أبي صدى إيو دبق الله عباك أنا ترادين إيو مصصك إيو جدك أبو الصنة فريسا إذا اللي عدي صومرتو قب كسين وحفا إذو كارين هابيراتين سوكو مجرتو بني آدم كمان أنت عالم وصدح ذا ويان إنك دوح بالله موريان تي عالم كموريان عصرية سباجرتو دولة ديسن إنه قروا ما يسان صدح ذا صفة ما أنت بني آدم كإليه دتك وقفي عن ما أنت أدوية ودتك عن عندي بينين مصلحة دودنا كف كرايا ومسلمين تعباد اللي رأيه العبادة ده قولنا وطبقات اللبادو إلا أوديك داديو حاجة دي سمك قد ميسو قيبت سدحاتنا ومعي جيت كاسو دبات الله فريسنا يا أمد دبيا وحفا إذو كاري عبيراتي مجرتو هاي صفات دي إنسانية دو آوي صفات كاوا صفات كي حيوانية دي آوي صفات دي بشرك الله قلت لقلي صفات دي بشرك الله قلت لقلي نبي قاسي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أوكا صفات الإنسانية وصفات دويان إيمان ملب النبي يقولي إلا قفك وحو نفس اللجع عليهي ولكن اللجع على صفات قاسنا عالم كمان توي كسو لين فالنبي قال عليه الصلاة والسلام هي جميع الأنبياء والرسل كمي دلالين سيدي دولك اللوغة فائدة استا سيدي بني آدم قوي هورو مركن برها وهلانة بل نبي يدو حي كود دلالين سيدي بو بني آدم كو إصلاحا هل كونا كي إصلاحا يا بني آدم قالكو كي إصلاحا وموقف السادة وقلبك نبي يدو دلالكو وحي كو بحيين قلبك أي إصلاحين يا قلبك معكو إصلاحا يا هدي قلبك فريسة معرفة إلهي مركاسو قلبك إصلاحا يا قلبك مركي قسو إلهي عبسديسو
ilaahay jalla wacalaa maaragtaanay haybadiisu ilaahay maxabadiisu ilaahay rajayntiisu qalbiga markay gasho ayaa xubnaha waxaa ka soo baxaya markaa aaaca wax la yidhaha taacaddaa dhib yaraanaysa, salaadaa dhib yaraanaysa, qur-aanka akhriskiisaa dhib yaraanaya, cadaaladdaa dhib yaraanaysa, samafalkaa dhib yaraanaya, maxabadaa dhib yaraanaysa, kala warhayntaa dhib yaraanaysa. leanna xubintii hoose ayaa islaaxday. markaa xubintii maadaamay islaaxday ra'iisiga ahayd, xubnihii kaloo dhanna markaa way toosayaan. lidaalika caalamka maanta horumar baa lagu sheegayaa. horumarka waxaa horumaray waa birahii weeyaane iyo dhoobadii iyo khashabkii iyo qoryihii baa horumaree, laakiin bini aadamku ma horumarin. bal bini aadamku waxau horumaray waa zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. khayru nnaasi qarnii wa fii riwaayatin khayru lquruuni qarnii baan rasuulku yidhi. dadka qarniga maanta aan joogo ayaa dadka ugu khayr badan buu rasuulku yidhi. wa fii riwaayatina nebigu wuxuu yidhi khayru lquruuni qarnii, qarniyada qarnigaygaabaa ugu khayr badan buu rasuulku yidhi. qarnigaa muxuu ku khayr batay? caalamka waxaan maanta aan haysanee technolojiya zamankaa ma oolin. birahan hadlaya ma oolin, birtan duulaysa ma oolin, birtan shidmaysa ma oolin, birtan hawada keenaysa ma oolin, birtan wax dilaysa ma oolin. birahan caalamka qaaradka qaarad saacada yar u duulayna zamankaa ma jirayn. laakiin maxaa zamankaa yaallo lagu horumaray? zamanka waxaa lagu horumaray waxa weeyaan dadku waxay garteen xaqii ilaahay bay garteen, xaqii addoommaha ilaahayna way garteen. caalamkao dhan waxaa loo nisbaynayaa maadaama jamaacaddii nebi maxamed uu kawinay ay ku noolayd adduunyada, waxaa la yidhi qarniyada qarnigaasaa ugu khayr badan. waxaa la odhanayaa toggaa u socdaa, togguma socdee biyihiibaa daadkiibaa soo rogmadoo daad ka socday ayaa tog oo dhan loo nisbaynayaa. qarniga daatadiisu khayr ma lahayne, bal jamaacadda zamankaa joogtay baa khayr badnayd. qarnigii oo dhanna iyakaa markaa loo nisbaynaya. allah ina fahamsiiyo. toggaabaa socdaa la odhan, toggii ma socdo. toggu siduu u socdaa? roob baa da-ay, daad baa soo rogmaday. biyahan socdaa toggii oo dhan loo nisbaynaya. lidaalika nebigu waxau yihi khayru lquruuni qarnii, qarniyada qarnigaan joogaa ugu khayr badan. qarniga maaha daatadiisa waxa khayr badane, bal waxaa khayr badan dadka zamankaa joogaybaa ayaa noqday dadkii dadka ugu khayr badnaa noqday. imaamu alambiyaa baa joogay, abubakr sidiiq baa joogay, cumar baa joogay, cusmaan baa joogay. dadkaasuu nebigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam. qabla alislaam siday ahaayeen, bacda alislaamna siday noqdeen. kayfa kaanat alcarab qabla alislaam? halka maanta innakoo aan marayno way ka darnayn iyakuna. xaaladday dadkeenna ka taagan dalkeenna xaalad ka daran bay ku jireen. innagu waaban eedaamayna oona shahaadanaynaay. xaalad adag bay ku jireen. dadkiibuu nebigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam. raggii waxay noqdeen abubakar radia allahu canhu mansabkee buu helay khayru nnaasi bacda alambiyaa. nebiyada marka xaggaa loo saaro kow ninka ummadda khalqiga ilaahay abuura ugu khayr badan abubakar buu noqday. cumar mansabkee buu gaadhay low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar baa nebigu yidhi. haddii ani nebi iga dambayn lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. cusmaan radia allahu canhu markuu nebigu ceelka uu lugihiisa ku raariciyey ee maaragtaana jilibkiisu maradu ka yar bannaanayd, abubakar baa fadhiistay, sidii buu nebigu ahaa. cumar baa soo fadhiistay, sidiisii buu rasuulku ahaa. cusmaan baa yimiday, isla markiibu nebigu maradii buu sii daystay. caaisha radia allahu canha baa ku tidhi yaa rasuula allah, aabbahay abubakar baa yimiday, kamaad xishoon. cumar baa yimiday, kamaad xishoone. cusmaan maxaad uga xishootay bay ku tidhi. markaasuu nebigu yidhi maxaanan uga xishoonayn caaishaay, nin ay malaa'igtuba ay ka xishoonayso. waa cusmaan. maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtaanay muhaajiriinta iyo ansaarta uu walaaleeyey, cali keligii buu nebigu soo reebay. markaasuu cali murugooduu yidhi yaa rasuula allah, aniga ma cid baamaad ila walaalaysay, ma keligay baad aniga igu dhaaftay? markaasuu nebigu yidhi yaa cali, adduunkan iyo aakhirada adiga anaadii walaaltahay, aamus buu rasuulku ku yidhi. maalintii tabuuka uu nebigu baxayena